السلام عليكم dhalinyarta ku xidhan channelkeena Keita Somali waxaan rajaynaynaa inaydu khayr iyo wanaag isku tihiin muuqaalkeena maanta waxaan ka hadlaynaa dhowr qodob oo ku saabsan maqnaashiyaheennii muddada laba bil ku dhow aanu ka maqnayn channelkeena iyo waxyaabaha cusub ee aan ku talagalnay waxaan rajaynaynaa inaydu ka heli doontaan barnaamijyadan markaan idin wadno wax badan ay soo kordhin doonaan soo dhawaada dhalinyaro ugu horeyn marka laga imaado muuqaalkeennii weekend watankii September ee 2025 ayaa sukay dambeysay muuqaal long form ah oo aan bartayna YouTube-ka ku wadaagno muuqaalo gaagaaban waan soo gelinay TikTok-geena balse YouTube xilligaasi ayaa nagu dambeysay dhalinyar badanina wayna soo weydiiyeen maxaa dhacay horta dhib ma jirto asxaabay wax kasta oo wanaagsan yihiin kliyata mashquul ayaa soo kordhay kaasoo ka yimid barnaamijyada aanu idin wadno maanta barnaamijyada aan idin wadno maanta waxa ugu muhiimsan saddex barnaamij aan ugu horeysiino qodob ku soo kordhay teamkeena Keita Somali teamkeena Keita Somali waxaan si rasmi ah u soo gelinay website-keena Keita Somali kaasi oo laga heli karo barnaamijyo ay develop gareeyeen team Keita Somali iyo cyber security consultation horaantii sanadkan 2025 waxaanu aragnay in bulshada Soomaaliyeed khaasatan maamulayaasha ganacsiyada kala duwan iyo sidoo kale dhakhaatiirta dalku ay baahi weyn u qabaan adeegsiga systems lagu maamulo shaqooyinka laguna ilaaliyo xogahooda systems badani dalka way ka shaqeeyaan balse intooda badani ma lahan optionka customizationka oo yacni sidaynu ognahay ganacsiyadu iyo isbitaaladu iyagoo isku shaqo qabta haddana kala wado ay maraan ganacsi kasta ama goob caafimaad kastana qayb ayaa muhiim u ah marka waxaan soo kordhinay optionka ah in ganacsi kasta iyo isbitaal kasta si khaas ah aynu develop gareyno systemkiisa sidoo kale systemyada aanu develop gareyno teamka Soomaali ahaan oo ku waafaqsan systemyada caalamiga sida kuwa maamulka isbitaalada iyo maamulka ganacsiyada oo waafaqsan nidaamyada xisaabaadka caalamka waxayna jirtaa in inta badan goobaha isticmaal systemsku ay bixiyaan subscriptions ama kiro bilo ah ama sanadle ah taasina waa mid ay barnaamijyadeenu kaga duwan yihiin oo waxaanu bixinaa optionka ah inaad hal mar iibsan karto systemka aad rabto sidoo kalena aad helayso support joogto ah muhiimadda teamkeena Keita Somali halkaani ma aha in lacago ka faa'iidno balse qodobkeena ugu muhiimsani waa horumarinta bulshada Soomaaliyeed in ganacsadaha loo ilaaliyo xogtiisa si uu horumar u sameyn karo in dhakhtarka loo ilaaliyo xogaha bukaanadiisa in qofka bukaanka ay heli karo reportkiisa oo daabacan oo cid kasta ay akhriyi karto fahmina karto xaaladiisa sidoo kalena waxaan wada ognahay dhibta laga maro akhrinta prescriptionska isbitaalada dalka iyo in inta badan dhakhaatiirtu aysan bixin report uu qofku ku ogaan karo xaaladiisa sidoo kale in system la maraayi wax yareysa khaladaadkaasi dhici kara iyo in xogta ku kaysanaato meel amni ah oo la isku haleyn karo intaasi ma isla fahanay sidoo kale waxyaabahan bixinno waxa ka mid ah la talinta arrimaha cyber security-ga kaasi oo kaga caawino shirkadaha ganacsiyada iyo isbitaalada kala duwan si ay u sugi lahaayeen amniga xogahooda ugana hortagi lahaayeen khataraha cyberka sidoo ay aqoonsan lahaayeen noocyada kala duwan ee khataraha cyberka una heli lahaayeen tababaro kor u qaadaya fahamkooda cyber security-ga taasina waa qodob ay tahay bulshada Soomaaliyeed ay ku baraarugaan xilligaani marka hawlahaasi waanu bilownay horaantii sanadkan 2025 ayaan ku mashquulsanayn macaamiil dhowr ahna waan la shaqeynay muddadaasi aanu barnaamijyada noocaasi ah wadnay macluumaad dheeri ah waxaynu ka heli kartaan website-keena Keita Somali aynuna soo booqano website-keena linkigu waxa uu yaalaa qaybta description-ka tusaale ahaan qaybtani waa projectida aanu hore u sameynay sida hospital management iyo real estate values-keenu waa inaynu dhisno softwares kugu shaqeynaya sidaad rabto amni ah la isku haleyn karo sidoo kalena aan kugu sameyno waqtiga ugu macquulsan intaasi ayaanu kaga imaanaynaa website-keenan waadna sii akhrisan kartaa macluumaad dheeri ah oo ku daabacnay sidoo kalena waxaad nagala soo xiriiri kartaa emailkeenaasi contact@keita.somali hagaag intaasi waa qodob ku saabsan teamkeena Keita Somali haddaba dhalinyarta nagu xidhan waxaan ugu talagalnay inaan usoo gudbino course aad muhiim ugu ah dhisida softwareska ama software development-ga kaasi aanu ogaanay inaysan dhalinyar badani wax xogaa ka haysan sidoo kalena aysan ku qaadan inta badan jaamacadaha IT-ga ama software engineering-ka haddaba course-kani waxaa lagu magacaabaa software architecture marka software la dhisayo si la mid ah sida dhismayaasha la dego waxaa laga bilaabaa in la dejiyo nashqada iyo architecture-ka oo systemkaasi yeelan doono qaybaha kala duwani si ay wada xidhi doonaan amniga softwarekaasi performance-giisa availability-giisa scalability-giisa iyo dhammaanba qaybaha kala duwan ee ku saabsan architecture-ka softwarekaasi waa kuwa ay muhiim tahay in la qorsheeyo oo la dejiyo intaan line code ahba la qorin system aadan architecture-kiisa ahayn ma dhisi kartid sidaas awgeed kooraskaasi oo aynu dareemayno inay dhalinyartu aad ugu baahan yihiin xilligaani sidoo kalena ay yar tahay meel ay uga heli karaan si free ah oo lagu sharaxayo si ugu fudud ee Soomaali ah ay fahmi karaan ayaanu idiin soo kordhinaysanaa
sidoo kale si faahfaahsan ayaan uga hadli doonaa faa'iidooyinka uu xirfadahaaga kusoo kordhin doono kooraskaasi markaynu bilowno insha allah. waxyaabaha kooraskani ka hadlayo waxaa ka mid ah inaynu ugu horreyn fahanno aasaaska iyo waxyaabaha loo baahan yahay si aynu dhisno software casri ah oo awood leh xilligan, sidoo kalena scalable ah oo aysan keliya isticmaali karin dad kooban balse aynu dhisi karno inay isticmaali karaan millions qof. farqi aad weyn ayaa u dhexeeya system ama application ay dad kooban adeegsanayaan iyo mid kumanaan ama millions qof ah loogu talagalay. waxyaabaha aynu sidoo kale ku baran doono waxaa ka mid ah performance-ga systemska ama applicationska, availability-gooda, fault tolerance-ga, teknolojiyadaha iyo qaabka loo adeegsado APIs-ka, load balancing-ka, architectures kala duwan ee systemska iyo applicationska lagu dhiso sida microservices-ka, iyo ugu dambeyn case studies ee lagu samayn doono systems, sidoo kalena ku dhisi doono kuwa aynu si practical ah ugu arkano waxyaabahaas soo tilmaamnay. waxaanu rajaynaynaa inuu kooraskaasi noo bilowmo isbuuca soo socda insha allah. qodobka saddexaad ee ku talagalnay dhalinyaro waa inaan waqti ku wada qaadano Telegram groupkeena. muddadaas aynu barnaamijyadaas ku mashquulsanayn activitieskeena groupkaasi waa u yaraa, sidaa awgeed waxaanu samayn doonaa waqti aynu si toos ah noo heli kartaan, kaasi aad nagu soo weydiin kartaan su-aalaha aad qabtaan, talooyin iyo wax kasta ku saabsiisan horumarinta dhalinyarteena ee dhanka teknolojiyadda, programmingka iyo cyber security-ga. isbuuc kasta maalinta Axadda 2 ilaa 3 PM ayaynu isugu imaan doonaa groupkeena, halkaasi aynu si live ah ugu wadaagi doono xogaha kala duwan. waxaana isna barnaamijkaasi noo bilaabmi doonaa isbuuca soo socda haddii alla idmo. qof kastaana waxaanu siin doonaa fursad uu nagu soo gudbiyo waxyaabaha uu rabo. sidoo kale muddadaas aanu ku mashquulsanayn howlahaasi hore waxaanu iyagana ka mashquulnay fariimaha khaaska ah ee nagu soo dirtaan Telegramkeena. taasina waxaan rajayn doonaa inaan fariimahaasi uga soo jawaabno si ugu dhaqsiyaha badan 24 ilaa 48 saac gudahood. okay, ugu dambeyn muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. waxaan rajaynaynaa in dhalinyartu ay nagala qayb qaadan doonaan qodobkaasi ah inaynu gaarno ganacsiyo iyo isbitaallo aynu dhisno systems lagu horumarinayo shaqooyinkooda, sidoo kalena ay dhalinyartu ka faa'iidaysan doonaan kooraskaasi software architecture-ka. waxaa isaguna xusid mudan in systemyada aanu dhisno tiimkeena K-Tech Somali laga heli karo goob kastoo caalamka ah. la wadaag asxaabtaada, sidoo kalena macluumaad faahfaahsan iyo meelaha nagala soo xiriiri kartaan waxaad ka helaysaan website-keena K-Tech Somali. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.